eedeedeeda anu maanta waxa yahay sodajir baan yahay toontoon baan yahay afartii qof aan ku aqliyeystay waa 30 sano ayaa wali ka shaqeysan mudana madaxweyne waxaan ahayd qof kale kuma biirin wali Djibouti Telecom ma ka hadlaya qof quraata reecartaada ka shaqeeya in sel person xabada quraata bas waxaan kaloon ku sheegay mudana madaxweyne adoo iga raaliya hadaan kugu badiyay aan liiseega carta baahi baa jirta baahidaas oo ah aan koraan male baa leeyahay marka ciyaalkii baaga marayay baa ashkatoonaya 6h30 bay soo baxan difaa 6 barka dhulku waa madow tareegi tablooga wixii lagu qoraday si fiican ma arkaya ma dhici karta aan male maxad muraaxada male dhulku xagaaba soo galaya muwan daafiqiil ma waxba lama dhigan karayo bla muraaxad waxaan kaloo ka hadlayaa mudana madaxweyne waxaa jira aan tamo fooqutiga fooqutiga mudana madaxweyne depo meel laba meelood waxaan leenahay laba poosod PK20 iyo PK51 service de douane oui c'est comme ça douanier marka gabadh reer cartaada oo ka shaqeysa ma jirto pourquoi pas de gabdhuhu ma qalmaan ma shaqadii ma gudi karayaan baa la leeyahay comment ça wad hay wade waxaan kala ka hadlayaa mudana madaxweyne an biqooga maxay hadan wuxuu ku dhex yaalaa maxay districtga biroga cashuuraadka ampooga waxa ka shaqeeyay shaqaale muddo 2 sano ah kadibna waa la fariisiyay bilaa bishaaro labadaas sano waxay ku shaqeynayeen bilaa bishaaro bidaan foolba ku shaqeynayeen imika hana shaqo ma haystaan xafadoogay fadhiyaan taana ada laga sugaya mudana madaxweyne merci ragga dadka la iskateynaya halkan bay joogaan horta inay dadku kala gartaan baa loo baahan yahay haddii imika shaqo loo egmado qof laba nooc weey mid waxa laga doonayaa inuu soo qabto mission gaar ah oo muddo doonay oo laga doonayo natiijo de kontraagaasi waa ku cayiman ama ku xadidan way ama waa 6 bilood ama waa sanad ama waa 3 bilood waxa la yiraahdaa temporaire soma mission de raga aad sheegaysa imika amboga dadkani hal la soo tiro koobo ki tukaale ki maxayle in si amboga loogu sameyn karo muddadaas 6 bilood baa la qoray 6 bilood way dhamaatay halkeedii la geyn markaa kaas waa temporaire ka kale ee shaqaale caadi ah isagoo dambi gala maayna lama yiri karo dambi isagoo gala oo lagu soo cadeeyay oo avertissement ka horeeyo oo conseil de discipline ku xigo dabadeed iyo kolka loo maara waayo ayaa qofka la iska kaxaynaya isba haddii qof reer Djibouti meel uu shaqo furan laakiin qofkii shaqadan abuuray ama jooga ama mas'uulka ah uu ka waayo magaaladani qof shaqada u qabanaya ha u diidina inaa qof kale la keeno maxaa yeelay meesha waa la xidhiba magaalada weyn way nagu haysataa taasiyo waxaad qorteen qof ajnabi ah bay oranayaan de qofka ajnabiga hadii loo baahan yahay sida la yeelay shaqada doonaysa qof xirfadii leh meel dhakhtar laga doonayo haddaad tiraahdo infirmiye hal la qoro dhakhtar ma jooge ma noqonayso mid engineer laga doonayo waxaan doonayaa technician inuu ka shaqeeyo noqon mayso meel qof yani forer la doonayo oo ceel qoda qof aan weligii ceel arkin miyuu ka shaqeyn karaa ama cartaha u dhasho ama weecaha u dhasho ama xambulaha u dhasho sabaqay isku mid qof shaqeeya un baa la doonaya laakiin inta laga helayo dadka meesha u dhashay yani xirfadeedaas laga helayo
qof kale looma tallaabayo taasna anigu aan wada ogyihiin ha kacaan oo imika ka warrama waxaan ku bilaabayaa sepek baa tidhimayn arrintaas khalal baa ku dhacay oo waddanka oo dhanba waa laga joojiyey maaha cartan khalal baa ku dhacay dadkii mas-uuliyiinta ahay aaminaad darro ayaa heshay ankeet baa lagu jiraa barhkood waa la xidhay inta hadhena waa laga dabageyn maxaa yeelay xoolo dadweyne lama taataabto marka laakiin arrinkaasi wuu soo dhammaaday xisaabtii sidii loo xidhi lahaa ayaa lagu jiraa baan u malaynaya soo maaha waa dhamaysa hadal excellence waa sidaa uu sheegay madaxweynuhu markaa si degdeg ah insha allah inaan wax la soo gaarsiiyo aan ku dadaalina haddii alla laakiin microcredigu baahidiisu waa waxa weeyaan lacagna qaado lacagna dhigo dadkeennii qaadashada way barteen dhigadii bay baran waayeen ya si baanka iyo ribadiisa iyo rabshadiisa aad uga nagabad gashaan ayaa microcrediga loo sameeyay laakiin waxaa laga doonayaa dadku inay wax dhigtaan ay lacagtooda kolkaa loogu daro laba jibaar loogu daro weli saddeed waxay keena un bay leeyihin inta dib soo celinaysa iyo inta kalena alaaw war hudheelkani maa maxay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم